dhowr kelmadood ama dhowr eray ayaan doonayaa af Soomaaliga ah inaan sharax kooban ka bixiyo maase aan xilli hore tiriyay oo leehda ay garad ayaan ka soo qaadayaa dhowrka eray kolleyba erayada hore ee afka Soomaaliga in la sharxaa waxay faa'iido u tahay da'yarta iyo cidii kale markaa ka faa'iideysanaysaba qodobka koobaad wuxuu oranayaa ardalkiya amuumkiya adami tilmaana waa saddex sifo oo saddex nin kala leeyihiin ardal waxaa had iyo jeer loo soo qaataa ninka la liidayo ee raganimadiisa la durayo ama la leeyahay waa laga fiicay ayaa la yiraahdaa ardal amuumiyahana waxa la yiraahdaa qofka aamuska badan ama ra'yigiisa iyo aragtidiisa aan cabiri karin ayaa la yiraahdaa waa amuumiye adame waxaan filayaa ereyga adame inuu waqti hore dabar go'ay adame waxa la yiraahdaa dadka had iyo jeer ugaarsatada ayaa laba nooc ah nooc waxay ugaarsadaan inta la cuno ee hilibkooda la cuno sida deerada cawsha sakaarada waxyaabaha in kala jirta oo wax u ugaarsato qaab ganacsi oo foolka maroodiga haraga shabeelka wiisha waxyaabaha ugaarsada ninka waxyaabaha ugaarsada la yiraahdaa adame af Soomaaliga waa erayada duugoobay si dabar go'aya aan ku soo noqdo awinkiya aswaantiyo yaa hadana ku jira awin iyo aswaan labada eray waxay ku jirtaa luqad ama aadahda lahjad hadba sidii loo fahmi karo aan Soomaaligan tooska ahayn waxa ku hadla beelaha leeyahdo culowah lahjada waxa leeyahay magaceeda baaqtan baa leeyahay waa Hargeysa Burcay baa laga hadlaa awin waxa leeyahay ninka aswaan na waxa leeyahay gabadha arahdiya argeegtiyo arah iyo argeeg iyana waa laba kale arahdu waxa weeye dadkii had iyo jeer imika way jirtaa meelaha qaar ee xilliga barwaaqada ah ayaa dumarku waxay doonan jireen maadh had iyo jeer waa caws laga sameeyo hararada laga sameeyo marka xilliga barwaaqada ah baa meelaha uu sida fiican uga baxo inta la israaco ayaa loo doonan jiray marmarka qaar midhaha iyo qaraabkana dadka noocaasi way doonan jireen marka mudday ku maqnaan jireen dadkaasi diif badan iyo gaajo iyo daalba ka muuqan jiray marka waasta lagu mahmaahay arah loo kala eg waata lagaga mahmaahay arahdu marka waa sida argeegtu waa geed had iyo jeer laga diiro ama laga sameeyo weysada iyo haroobka iyo marmarka qaarkood haamaha iyo ayaa laga sameeyaa inta dab lagu yarshido la yar halamiyo ayaa sida qabadoo kale la feedhaayo dabeetana laga sameeyaa weysada marka weysada saa looga sameeyo baa fur geed laga soo qoray weysada la geliyaa marka weysadaas uu caan ku yahay adigu haroobka iyo haamaha iyo marmar waa laga sameeyaa laakiin caan wuxuu ku yahay agadkiya adeentida agadku azaliyan waxa ereyga isticmaala qolyaha macdanta waa dhagax macdanta kamid ah agadka iyo akumaareenka iyo waa macdanta iyo obilka nasiib daro macdantu say u dhan tahay uma lehin erey bixin Soomaaliya ereyadii ay kaga yimaadeen ajaanibka
ayuun baynu u isticmaalnaa. haddaad sii raacdo safiirka, rubiga, emeralka, agadka, akumaareenka, obilka, waxaasoo dhami waa ereyadii ay noogu yimaadeen. filimaayo ereybixin soomaaliya inay macdanta loo leeyahay. marka agadku azaliyan waa macdanta. deegaanada qaar waxay u yaqaaniin xilliga barwaaqada faraqa ay dhirtu bixiso ayay u yaqaaniin. agadka iyo adeentida. abaajiga asoolka leh. abaajiga ereyga abaaji waxaa loo adeegsadaa reeraha ama dadka xoolaha badan leh, siiba ariga, marka laga yaabo inuu 800 900 kun meelaha yahay. neef iyo laba iyo haddii ay lumaan hore looma tabo, dabeetana waxaa la yihahdaa yani wuu abaajiyey. waa neef beri hore intuu lumay iska duugoobay. hees ay qaadi jirtay Khadra Daahir ayaa waxaa ku jirtay naftan ku ogolaatay kuwa abaajidee baa ku jirtay ee kugu indhala u shamaad u qaban. abaajigu waa ka. asoolkuna waa iduhu markay wanka u baahdaan. awsaaxa jiifiya ilma dhuug kolay tahay. awsaaxu maska gaboobay baa la yihahdaa. ilma dhuugna waa qiso daraasad u baahan oo waxaa la yihahdaa awrka ilma dhuuga yaqaan baa le. awrkaasi ilma dhuuga oo hashu hadday caloosha wax ku sido wuu ursadaa awrku. waxaa la yihahdaa urtaasuu ku gartaa ilmahay caloosha ku siday inuu dhintay iyo inuu nool yahay. marka ilma dhuug baa la yihahdaa. dee waktigaa iska kooban. waxaan filayaa intaasi inay sharaxii ku filan tahay layga codsaday.